السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب سود هذا أصحابتا هدو إلهي قدروا وحان ويسنا فيلم دونا مانتا ميد كميدا عوانا دا لغو خاطو تكسيغا ساري مادة حسابتا خاصة وحان ويسنا فيلم دونا شابتر كليرا هدو تريغنومتري هدو إلهي قدروا هذا وحان كبلابي دونا تريغنومتري ومحي sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa waxa la yiraahdo Greek symbolska ama waxyaalaha loo isticmaalo trigonometry-ga sidoo kale waxaynu kaga sii hadli doonaa basic trigonometry haddii ilaahay qadaro chapter-kan waxa uu noqon doonaa chapter taxanaha ah oo ashara fara badan ka koobnaan doona sidoo kale waxaynu ka soo bilaabi doonaa maadaama trigonometry-gu syllabus-ka oo laga soo bilaabi doono ama ka soo bilaaban doono fasalka tobnaadka ama form 2ga waxaynu ka soo bilaabi doonaa form 2ga kadibna waxaynu u soo wareegi doonaa kuwa form 4ka hadaba asxaabay trigonometry markaynu ka sheekeynayno trigonometry markaynu sheegayno kelmadu asalkeedu waxa ay ka timaatay laba kelmadood oo la isku daray kelmadu koowaad oo ah trigonon oo macnaheedu waxa la yiraahdaa triangle iyo macnaha labaad oo ah metri oo macnaheedu ay tahay measurement hadaba sidaasi waxaynu ka dhansan doonaa kelmadda trigonometry in ay tahay waxa la yiraahdaa measurement of triangles waa cabirada saddex xagalada sidoo kale trigonometry waxa la yiraahdaa waa is a branch of mathematics waxa la yiraahdaa waa qayb kamid ah mathematics-ka wajdiiluskaas waxa uu ka hadlayaa baa la yiraahday measurement of triangles cabirada saddex xagalada buu ka hadli doonaa hadaba inta haddaan uga baxo definition-ka trigonometry-ga sidoo kale waxa aynu ka hadli doonaa oo isla fiirin doonaa waxa la yiraahdo Greek symbols hadaba maadaama saddex xagal waxa la yiraahdaa aynu ka hadlayno waa inaan isla fiirinaa waxa la yiraahdo Greek symbols of triangle yani marka aynu ka hadlayno trigonometry-ga waa inaan isla fiirinaa waxay dhahaan Greek symbols yani tusaale ahaan oo kale aljabrada marka aynu ka sheekeyn jirnay waxa la yiraahdaa unknown solids-ka dhinacyada aan la aqoonin waxaynu taagi jirnay waxa la yiraahdo variables baynu taagi jirnay ama ha noqoto x y baynu taagi jirnay laakiin maadaama aynu ka hadlayno anagu waxa la yiraahdaa saddex xagal maadaama aynu ka hadli doono xaglaha waxa aynu u taagi doonaa haddii ilaahay qadaro looma isticmaalo x iyo y loo isticmaalay ma laakiin side hadaynu ka hadlayno ama length ama side aynu ka hadlayno tusaale kale halka waa oran karaa x centimeter kan waa oran karaa waxa la yiraahdo y centimeter kan waxa la yiraahdo oran karaa z centimeter waa oran karaa laakiin xaglaha waxa jira waxyaalo loo isticmaalo baa jira kuwaas marka waxa la yiraahdaa Greek symbols marka hadaba waxyaalaha loo isticmaali karo maxaa ku ka ah waa inay isla fiirin doonaa tan koowaad waxa la yiraahdaa aan isla fiirin doonaa waxa la yiraahdaa waa theta tusaale kale meeshaas waxa la yiraahdaa waxaan dhigayaa theta saan leeyahay theta waan isticmaali karaa sidoo kale meeshaas oo kale waxa aan dhigi karaa kelmad alpha waxay dhahan alpha waxa la yiraahdaa waa Greek symbol loo isticmaalo in lagu soo bandhigo haddii ilaahay qadaro xagasha waxa la yiraahdaa cabirka ay xagashu ay leegtahay sidoo kale waxa loo isticmaali karaa ama lagu soo bandhigi karaa waxay dhahaan beta sidoo kale waxa lagu soo bandhigi karaa waxa la yiraahdo gamma sidoo kale waxa lagu soo bandhigi karaa waxa la yiraahdo phi sidoo kale waxa lagu soo bandhigi karaa waxa la yiraahdo delta sidoo kale waxa lagu soo bandhigi karaa waxa la yiraahdo omega waxay dhahaan omega yani inta soo xabo asxaabi waxaanu isticmaalaynaa in aynu ku soo bandhigno ama aynu dhigno xaglaha meelahoodii tusaale ahaan oo kale halkan theta dhigay sidoo kale waxaan dhigi karaa alpha dhigi karaa waxaan dhigi karaa wax la beta dhigi karaa gamma dhigi karaa phi dhigi karaa delta dhigi karaa omega dhigi karaa inta soo waxyaalood oo waxyaalo loo isticmaali karo in xagasha position-keedii wax la yiraahdaa lagu soo bandhigo hadaba inta waxaynu iskala garanay definition-ka ay leedahay wax la yiraahdo trigonometry yani trigonometry waxa ku yiraahdaa waa is a branch of mathematics waa qayb kamid ah mathematics-ka kaasoo loo isticmaalo ama ka hadla measurement of triangles-ka cabirada triangle ku hadlaya sidoo kale waxaan ku raadiyay kelmadda trigonometry waa kelmad ka timaada wax la Greek oo wax leedahay waxay kooban tahay laba qaybood qayb la yiraahdo trigono macnaheedu ay tahay triangle iyo qayb dhahan metric ay dhahan measurement kadib inta markaan triangle-ka isla hadalnay waxaynu kaloo sheegnay waxa la yiraahdaa aljabrada dhinacyada waxa loo isticmaali karaa waxa la yiraahdo
variable baa loo isticmaali karaa dhammaan variablada ay ka kooban tahay luqadda ingiriisigu waa loo isticmaali karaa ilaa hal variable baa jira oo variableka o looma isticmaalo in loo isticmaalo tusaale ahaan oo kale 2x plus 3 waxay la mid tahay 6 waa oran karaa laakiin ma oran karo 2 oo lagu dhuftay o waxay la macno tahay 3 oo lagu daray 3 waxay la macno tahay 6 سألادلجيدي الجبرة ده وحنا ممنوع كعه إنه استعماله حرف كأو طبعا وحنا يسكت ده داوده سببتها لو كنسلي أم لو دي إنه استعماله حرف كأو يضل لمان حرفها كلا كوبان تحي لون استعمالكم يعني واي لو استعمال لا لو استعمالي وهي هل كان واقعه خري بروح سمعني سا قف الصويدي كده كم ده بروح يسكت ده واي صوت لو استعمالي وهي إن لو صوب بندقه meesha loo isticmaalayo 2x maxaa loo oran waayay 2y ama 2o maxaa loo oran waayay bal isku soo day qaybta commentiga noogu reeb ujeedada sababta loo diiday sidoo kale asxaab waxaan isla hadalnay meelaha loo isticmaalayo baan kori sideska ama dhinacyada waxa loo isticmaalayaa x y z dhammaan alifbeetada xarfiyada loo isticmaali karaa markii laga reebo xarafka o sidoo kale xaglihii maxaa loo isticmaali karaa xaglaha waxaan isticmaali doonaa Greek symbolska kuwaas oo dhan waxa la yiraahdaa بينو استعمال دونا هادو إلهي قدره يعني ما محي حاجة عن قرن قيمة هذا position كذا دقيقة منو x y z دقيقة منو وحن دقيقة Greek symbols كسان دقيقة دونا ميت كمدة هذا بس حابي واحد يراضو 10 كأنه كواد مرة بينا فيديو أي ديرادان سير لاد اللي قيت قيمة إنه كواد ما أنت وحين نقصو قبلنا إنتاز أنت عينو كل متونو كان كيس حاجة وأنا بويسكتو بنو إذ الله في أمان الله